Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. Maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. Aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta uu u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. Xikmad ayaa odhanaysa carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin, dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. Waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. Marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. Weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? Ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? Aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. Faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. Dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. Erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. Hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. Sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. Waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. Waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin Soomaalidu wax ku maamaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale, taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. Waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. Markii aad badanaa aamusan tahay halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. Dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. Marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. Faa'iidada labaad ayaa ah dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. Haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. Markaad aamusan tahay waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. Inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. Faa'iidada saddexaad, hadal fakaday daba qabasho ma leh. Mar hadduu hadal kaa fakado ma soo celin kartid. Si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. Ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama ciqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. Tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas'uul ka noqoto. Markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. Ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. Jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. Faa'iidada afraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. Aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. Way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. Markaad aamusto si degan aad u dhegeysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. Sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. Hadalkaadoo bataa dadka waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. Haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. Ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. Asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. Haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. Muuqaal kaloo xiiso leh.